maanta oo ay tahay maalin runtii ka mid a maalmaha waxaanu halkan la isla gartay guddiga coronavirus ee heer qaran guddiga heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markii ay wadatashi buuxa la yeesheen dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta khibradda durugsan u leh qaabka la isu qaadsiiyo ama uu u faafo xanuunkani waxay caddeeyeen in isku ururku dadweynuhu ay tahay meesha ugu daran ee cudurkani si sahlan bulshada dhexdeeda uga faafi karo ciiddu waxay ka mid tahay munaasabadaha waaweyn ee kulmisa qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba xaaladda xasaasiga ee haatan lagu jiro awgeed suurtagal maaha in munaasabadda ciidda loo xuso sidii markii hore loo xusi jiray sidaa daraaddeed guddiga heer qaran ee covid-19 iyagoo muhiimad gaara siinaya badbaadada iyo fayaqabka bulshada jamhuuriyadda somalilan munaasabadda ciidda awgeed waxay soo saareen go'aamada soo socda oo la xidhiidha habraaca maalmaha ciidda barakaysan kow iyadoo laga duulayo fayaqabka iyo badbaadada bulshada maadaama ay salaaddu ciiddu tahay sunne waxaan gebi ahaanba la joojiyey salaadda ciidda lagu tukanayo masaajidada iyo garoommada xanuunka awgii dadweynaha waxaa lagu wargelinayaa inay guryahooda ku tukadaan mulkiilayaasha goobaha carruurta ku ciyaaraan waxaa lagu amrayaa inaanay furi karin goobaha lagu ciyaarsiiyo carruurta oo playgroundska loo yaqaan waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay hadday tahay gobollada iyo magaalooyinkaba laga bilaabo 1 duhurnimo maalinta ciidda ka horraysa amarada aanu soo saaray maalinta ciidda waxaanu ula jeednaa waxay noqonayaan maalinta ciidda iyo maalinta ka dambaysa labadaa maalmood ayay noqonayaan dhammaan labadaa maalmood isu socodka gobollada iyo ka guduhuba uu reeban yahay dadkana waxaa lagu codsanayaa inay guryahooda joogaan oo ay ku ciidaan maadaama xanuunkan dilaagii uu ku jiro dalka si baaxad leh ugu jiro marka laga reebo gaadiidka sida badeecadaha kala duwan waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka dadweynaha u kala gudba magaalooyinka iyo gobollada waxaana bulshada guud ahaan la farayaa in qof kasta ku ciido gurigiis waxaa gebi ahaanba la mamnuucay in huteelada lagu qabto wax casumada ah oo kulmisa tira badan habraaca waxbarashada ee covid-19 guddi heer qaran ee covid-19 jamhuuriyadda soomaaliya waxay iclaamisay go'aamada soo socda ee ku saabsan waxbarashada wakhtiga lagu jiro kahortagga coronaviruska in dhammaan dugsiyadu ay galaan fasaxoodii caadiga ahaa ilaa 31 bisha 7 2020 in dhammaan dugsiyada qur-aanka ay galaan fasax 30 bisha 6 2020 fiiro gaara waxaa la farayaa dhammaan laamaha ammaanka ee dalku inay ka howlgalaan amaradan ka soo baxay guddiga heer qaran wabilaahi tawfiiq aad iyo aad baan idiinku salaamayaa waxaana ii wakiishay maadaama uu joogo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan inaan go'aankan idin soo gaadhsiiyo madaxweyne ku-xigeenku taagan sidaa iyo wada shaqayn fiican